boqolaal ka mid ah dadweynaha ku dhaqan degmada Bulaburte ayaa maanta isugu soo baxay banaanka magaalada Bulaburte oo lagu ogayay salaad roobdoon ah isla markaana eeba loogu bariyay naxariistiisa inuu ugu deeqo muslimiinta qaaligii hore ee maxkamadda gobolka Hiiraan Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cadde Sheekh Cabdiraxmaan Bulaay oo ka mid ah dadka isku soo baxa dhigay ayaa ugu horeyn ka hadlay fagaaraha salaada roobdoonka lagu dukanayay markaan toosanahay baan naxariista Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay uu naleeyahay haday ku toosnaan lahayn dariiqada baan waxaan ku waraabi lahaynay biyo dhibco waaweyn saasa Ilaahay naleeyahay subhanahu wa ta'ala Nabi Suleymaan oo soo bixiyay dadkii oo arkay jilacsa lugaha kor u taagaysa ee ginta cad u jiifto marka Nabi Suleymaan uu yiri iska noqda faqad suqiitum bi da'wati ghayrikum ghayrkiin baryadood ayaa leedigu waraabiye iska laabta oo dadkii dhahay xayaale khalaa'iqda arladan ku nool oo dhan roobka waa u baahan yihiin markii Ilaahay roobka dhulka noogu diiyo wax ka soo baxaan ayaa bahal iyo bahaa'im iyo maaragta bani aadam inta ka dhaxaysa dhulkaas unba afka lala galaa wax laga cunaa marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka baryaynaa raxmadiisa nasiiyo sidoo kale waxaa halkaasi kelmado ka jeediyay culimada iyo macallimiinta ugu waaweyn degmada Bulaburte oo ku baaqay in la iscafiyo iyagoona kula dardaarmay alle ka cabsi iyo cibaado alle meesha hadda maanta waxaan soo kulnay waa ihtiyaajada la qabatay oo Ilaahay cibaadiga hana soo waraabiyo badarka xaqiisa ah marka waxa isku jiro muslim iyo gaar dhan nin caasi in baadigeena muddo intee ka dhaxayso Ilaahay raxmiisa oo loo baahan yahay marka saasaan rabnaa maanta waxaan imaanay in Ilaahay aan wada barino qalbi furan aan baad ku furano saasaan baadi aan u imaanay Ilaahana ka rajaynaynaa raxmada Ilaahay waasica waay qalbiga hadii la furo intaan aan Ilaahay isla barino oo isla jeedno waa helaynaa insha Allah laba qofood oo isla col ah ama mashaakilaad oo dhex yaalo looma dhaafayo dembigooda Ilaahay ka heshiyaan marka aan heshiino aan dibidhaaf alla weydiisano si Ilaahay oo nooga aqbalo dhammaan qof walbo qofka kale waxaad u qabtay iska cafi si anagoo qalbigeena oo maaragtay khaashi yahay oo saafi yahay tawbadu ay maqbuul noogu noqoto alla aan barino marka alla baryadaas shuruudeeda tawbada waxa kamid ah in la iscafiyo marka hore dambiyalka laga tawba keeno waxa uu ku soo beegmayaa isku soo baxan xilli meeshii ugu sareysay ay marayaan abaaro qatar oo ku dhuftay degmada Bulaburte iyo deegaano hoos yimaada Cabdisalaan Maxamed Ibrahim Cabdisalaan Habi TV-ga caalamiga ee Somali News degmada Bulaburte ee gobolka Hiiraan